qosli qarax waa qayb maadaho laha sawirsamo waatahay xiiseyaal halkaad kala socotaan waa idaacadda hirsamo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii lahaasaw hirsamo ama qosol iyo qaraaxo barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qaybaha sheekooyinka sidoo kaleeta maanta barnaamijka waxaa igu marti ah qof aad caan u ah islamarkaana la yaqaano hadiyaa weeye inta aan idiin sheegin codkeeda waan iska maqlahay waar faadima duur waaw maanta barnaamijkeena aad buu xiiso badan yahay dhanka sheekooyinkana faadima duur inay idinka kala kicin doonto ayaan filayaa inaa faadima duur ay soo dhawow inaa ka waran heestaan galabkan ku daafuranayna barnaamijkeena waan dhowahay aad iyo aad waan u dhowahay sheekooyinka waad naga kala kici doontaa kaalimaha sugaanta heesteebaad inoo soo qabanaysaa waxaan leeyahay inanka aan aad u gaclooda leeyahay inanka ayay 19aad baan u ahay heestiisa baan rabaa heesta inoo sheeg ciwaankeeda maxay yahay hortukaadi aniga intii xamar bilaa xariirta la daawadiyo waa heestii surdaar seeraar xurmiya gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiya dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey xurmiya gaarashiyo wanaag iyo dulqaad fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin waata haddaan halkaa kaga gudubno heestaasi uu ku luuqeynayey siina fanaanka caanka waana dooqeeyey faaduma duur markana waa qosol iyo qaraaxo iyo lahaasaw hirsamo qosol iyo qaraaxa maanta aad buu u xiiso badan yahay faaduma duur ayaada iyo igala qaybgelaysa marka barnaamijkeenna aynu bilaabeynaa sheekada ugu horeysa aan maanta usoo qaban doono waa sheeko aad u qosol badan waxaynu ku saabsan tahay dhanka baqaylnimada faaduma duure baqaylnimada maxaa u taqaanaad is leedahay wax baqaylo odaygaygoda xarfaayaha ban ka xasuustay kahor alla kuugandoo basaweyna marka sheekadan baan usoo qabanaynaa haddii waxaa layidhi hadda ka hor nin baqayl ah waxbixinta aan ku fiicnayn ayaa waxa u yimi nin marti ah oo aad u qiimeynayo wiilkiisii yaraa buu u yeeray oo uu u sheegay inuu suuqa ka soo iibiyey hilibka ugu fiican hilbaha marka maxaad is leedahay qof baqayl oo loo soo martiyey qof baqayla oo hilib soo iibino jarjari calwalaha inuu soo iibinayo waa tahay sheekadu way sii socotaa odayga markuu u diray waxaa layidhi odaygii markii xoogaa u dir wiilkii wuu soo daalay baa layidhi marka isagoo daalan buu soo noqday marka odaygii baa yidhi war maxaad hilibka u keeni weyday wuxuu wiilkii ugu jawaab celiyey baa layidhi aabba waxaan u tegey hilbaha oo ku idhi ninkii hilibka iibinaya hilibka ugu fiican ee ku yaala keen wuxuu hilbihii ugu jawaabay hilib waxaan ku siinayaa fiicnaantiisa darteed aad moodaysa burcad waxaan isiri buu yidhi wiilkii war haddee faadama duure wuxuu leeyahay waxaan isiri buu yidhi wiilkii war haddayba saas tahay maan burcadka laftiisa soo iibsado ninkii dukaanka baan weydiiyey inuu burcad aad u macaan isiiyo
markaasuu yidhi waxaan ku siinayaa in burcad aad macaanteeda moodaysa malab isla markii wiilkii waxaaba ku soo dhacay inuu isla malabka uu soo iibiyo markaa wuu u tegey haddana ninkii malabka iibinayay markaa wuu ku yidhi war malab wanaagsan isii markaasuu haddana lagu yidhi ina waxaan ku siinayaa malab moysaxada u saafi ah wiilkii waxaa ku dhalatay war haddiiba ay saas tahay biyaha moysaxada lafteeda gurigeennay taallaaye maad iyada martida siisaan bal ka war marka sheekadu way sii socotaa caqli badan oo fariid alile fariid kaaman anigu farac u leeyahay anigu kale waa macquul xoogaa dhanka baqaylnimada ee lacag dhaqaalaynta inuu kaa raac markaabuu sidaas markuu gurigu ugu soo noqday ayuu aabbihiis ku yidhi marka aabbihii oo awalba waxbixintu ku adkayd ayaa wiilkiisii ku yidhi allow alleh walle caqliga iyo raganimada anigaa kugu dhala ee allaha ku dhaafo laakiin mar kaluu aabbishii wiilkiisa la hadla oo yidhi war wax kasta waxaa nooga daran intii aad suuqa wareegaysay sawkabihii cusbaa ee aan kuu soo iibiyey kaama dhammaan waar waxbaa kanaawo inanku wareegu dilo buu kaba ka naxayooday waxba inanka uma jeeda asiga waxaasina waxaa u cad kaliya ina kabahaasi inuu soo idlaado markaasuu wiilkii haddana wuxuu ahaa wiil aad u fariida markaa uu yidhi taas dhib noogu filan markuu yidhi wiilkii oo qoslaya ayaa aabbihiisa dhegta ugu sheegay aniga miyaa caqliga beelay waxaan gashanaa kabaha ninka martida noo ah intaasoo sheeko ahna martidii dhegihiisa ayay ku dhicaysay oo waa uu maqlayay marka muxuu isleeyahay ninka martida ahaa ninka martida lele allo adigu aan lacagii xoole isan kaa dhigin israada buu cagaa wax ka dahaya oo wuxuu ninkii odayga way kala darin wada baqaylin maya inanka wax dhaqaalays buu ku wadaa odaygana waa kaawo u garanaya waa aabbihiisa hadduu odaygii baqaylaya inankii siduu ku noqonaya nin saqaya isla baqaylkii uu noqonaya soo kabiyuu intuu meel dhigto sheeko hadda ka hor maxay ahayd horta xooga way kala maqan tahay balse nin kabaha intay ka dhammaan lahaayeen isagoo qorax kuleel lugeynay kabihiisii qabsay way caguhu dhan jeexjeexdeen mar ayaduna aan arkay sheekadaad waaba tiyo ninka martida waa laga idliyey wuxuu ku laabanaya oo gurigiisa ugu tagaya cunto way u diideen war horta ka hor waxaa la yidhi faadumo duur sheekadaas horta maxaa ka jira adigoo sabiya inaad hawartaada dhagax intaad u qaadatay aad dhagaxaysay oo tuuraysa way jirtaa leel ayaa ku sheega sheekada way wareegtay way soo gaadhay hore way Soomaali waxay u tiraahday dhagax meel dhow dhawaaqna meel dheer marka dhawaqiiba ay soo gaaraya xoogaa bal iga taataaway ka soo sheekadii waagi anigu yaraa hadda xoogo 14 jirad barahay 14 sano sheeko ka soo wareegtay baa waagi lahaya ma badana oo wanaagsan hore aleele anigu caruurtayda way igu sameeyeen taa way dhici kartaa marka adigoo yar sideed micnaha ku fikirtay inaad hooyadaada dhagax aad u qaadato oo tiraahdaa waryey mar damba naasinaadaysiinay bay ugu dishaa marta horaasii bariiraasi dheeri bariira islaanan wada caadiyahin ba hooyadayda waa tahay faadumo duure intaa inooga haki waqtiga barnaamijkana xoogaa sidaa filay 2 daqiiqa ayaa ka dhiman qaybihii sugaanta oo aan 1 daqiiqa camal aan ku nasanayna ayaan soo qabanayaa heestee baad leedahay waanu soo qabanayna kamaan dheriberiaka Soomaaliya aad u wanaagsan ugu too dhalinyarada ariga Soomaali maadaama iska dhaafay dhawaanahan dhanka hindiga bay iga shadantaa baad leedahay waraa hindiga naftirkeeda haddaad noogu tuuri kartid waa iska okay aad bay u shidantaa Soomaali oo dhan baan iska dhaafa mooyaane kuwa soo wada idlay adeero walle naga cajaa'ib baa tahay inta dumbartay sooda Galol gandaway, gadulula
gamuunka jacaylku igila oo go'doomay dartaa waana gardaya waa tahay dhegeystayaal ina annagoo qaybihii dambe barnaamijkeena isla soo gaarnay waxaynu halkan ku ekeenaynaa barnaamijkeeni qosol iyo qaraaxa ama laha sawirsamo oo maanta ay martay nooga eeg fanaanada caanka fanaanad maa taabta mise waxaa tahay majaajiliista adigu abwaanad baana islaan laga dambeeyo madaxweynaha madaxweyne baad bal leedahay war dadka maanta youtube-ka idaacadda ku xiran inay yaabaan baaba laga yaabaa marwada dalka baana balse laygama warqan bas allele waagii hore khadka hore waan ahaan jiray ama lagu soo reediyaa farmaduure garan maayo maraa iska caadi odayga iga xarfaya baa jiray shaqaale buu yahay bal intaa inoogu boos garay inkastoo faadmaduur sheekadeeda haddii waa aan sii dhexgalayaan inuu waqtiga barnaamijka in ka badan uu nagu qaata baa laga yaabaa marka barnaamijkeeni qosol iyo qaraaxa halkan baynu ku soo gebagabaynaynaa nabadaya